بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاد بان idin salaamaya waana kaltuuna umada Soomaaliyeed meel kasta iyo meel walba aad joogtaan baad baan idin salaamaya. Waxaan isir live soo gal laakiin live wuu shaqeyn waayay. Marcadka bay shaqeyn waayay mana live gabadhiisa ayaa mudaharaad igu galay oo shaqeyn waayay. runtii aad baan idin salaamaya dhamaantiinba. waxaan doonayaa inaan halkan idin qaybsato qiso yar oo mataqaanaa wacyigelina oo dhanka Facebook laga soo diray. waxaan kaloo doonayay inaan halkan idin qaybsado cream aan doonayo inaan gadaal idinka tuso, laakiin qisada ayaan ku horeyn doonaa. qisadan waxaa ii soo diray inaan Maxamed la yiraahdo oo ku nool wadanka UK. qisadan aad far badan baa la soo diraa, laakiin tan waxaan uga soo doortay ama aan uga soo dhaxbaxay waxay inoo noqon doontaa wacyigelin dhalinyaro aad iyo aad far badanna waxay noqon doontaa feejignaan in ay mataqaanaa waxyaabahaas oo kale ay ka feejignaadaan ama ay mataqaanaa iska ilaaliyaan. hadalkeena ku daalinin inaan UK degan oo Maxamed la yiraahdo ayaa sheekadan soo diray. wuxuu igu yiri wadanka UK in badan deganaa in kuna dhalinyaro hadadiisa saamay weyn. wuxuu wadankii baan tagay, wadankii markaan tagay buu yiri aan joogay buu yiri muddo ilaa bilman ah saaya. wuxuu lagu qalqaaliyay lagu yiri guurso. wuxuu yiri inaan baan is aragnay inantana aad baan uga helay buu yiri runtii calafkuna ku adeegtay waana guursaday inantii. saacatee sheekada waan soo gagaabanaysaa guud saacatee wuxuu inantu marka aan guursanayay dadka intii igu xirnayd intii ila socotay inanta laftigeedii xalaal wax la sheegay ma jirto, aniguna si indhala ayaan inanta ku galay kuna guursaday. wuxuu yiri muddo markaan inantii wada joognay ayaa wuxuu yiri sheekooyin yar oo xanxan iyo waxay soo gargaaray dulduul inantu inay xanuun qabtay xanuunsanaysay. iyadii ayaan wuxuu yaafkeedu la tagay waxaan ku dhaw yiri sheekadan isoo gaadhaysa maxay tahay. waxay igu tiri walaal ama kanax ama ku farax xanuunka caynka iyo caynkaas eediska la yiraahdo ayaa i haya. de wata sheekada lagu sheegay. wuxuu yiri waan naxay aad iyo aad baan naxay qof bilaadan aan ahay. dadkii igu xeernaa iyo dadkii ila joogay iyo dadkii gabadha ii galbinayay iyo dadkii mataqaanaa igu qabanqaabinayay inta guursado kulli wuxuu wada ogaayeen. dabcan dadka wada jooga dee meesha waa iska yartahay waa la is wada ogyahay runtii, laakiin qof wuxuu iga qabtay iyo qof wuxuu yiri maxay siiyay buu yiri wacyigelin iyo qof igu yiri war ka joog toona midna ma ay jirin wallahi wada aamusay buu yiri shubba la wada yiri. iyada laftigeedii aan guursanayay wuxuu yiri dabanka way ii dhigtay shubba ii tiri. saacati bal anigu waxaan isweydiiyey qof la aadana oo islaama oo walaalkaaya oo shahaadinaya haddii adiga xanuun iyo dhibaato ay kugu dhacday halkaad adigu ilaahay uga toobadkeena ilaahay ka bari lahayd qof kale inaad halagtid oo aad xanuunkaad qabtay aad u qarisid oo aad mataqaanaa future-kiisa halagelisid oo aad naftiisa ku ciyaartid maxaad ka helaysaa. runtii waa wax aan aad iyo aad uga naxay. haddaba anigu waxaan inanka UK buu joogaa, UK buu kusoo noqday. wuxuu dhakhtaradaan tagay dhiiggiima iska qaaday xanuunkii waxaan positive buu igu noqday buu yiri walaalo waana qabaa laakiin qarsan maayee dee dhalinyarta fara badan wuxuu yiri Soomaaliyeed ee tayada kale ku socota ayaan doonayaa inay ila qaybsadaan kana joogan kana foojignoodaan. waxaan idin farayaa haddaba oo idinku darayaa qofka bilaadanka marka aad guursanaysaan kullay guur wuu dhacaya oo ma joogsanaye. qofka bilaadanka marka aad u tagaysid iska hubso caafimaadkiisa wuxuu yahay. qofka dhakhtar iska gee iska eeg adigaaga laftigaaga dhakhtar tag. yacni waraaqihiinni adinkoo sito oo qofkana aad ogtahay inuu caafimaad qabo adna aad caafimaad qabtid dabeetana sidaa isku guursada. laakiinse qof aanad garanaynin daladalaqadoola daf intaad tirahdid nafta wax ka qaalisani ma jiraan. yacni maalin hadduu madaxu ku xanuuno waad ogtahay dhibaatadaad maraysid macdala waaba naftaadii dhammayd weeyaan ayaa leynka ku jirta. markaa iska hubsadaan idin leeyahay. soomaaliduna waxay tiraahdaa badanaa marka la yiraahdo qofka ordo dhakhtar tag ama isa soo baadh maxaan iska baadhaya maxaad igu ogay. yacni waxay u qaataan in yacni ataag iyaga lagu samaynayo oo kale. ataag maaha. maanta hadduu qof igu yiraahdo ordo walaal dhakhtarka tagayso soo barxo markaa naxariis baan arka waayo caafimaadkayga ayaan soo baadhay. marka in qof aan warqad sidanin qof aan dhakhtarka geynin aan iska hubsanin caafimaadkiisu inuu sax yahay runtii inaad naftaada ku haligtid oo naftaada ka dulgaysid qalad baan u arkaa runtii. intaasna waxay iga tahay wacyigelin bay iga tahay. maxamedna waynu soo ducaynayna in ilaahay caafimaadkiisiyo taama in ilaahay siiyo in ilaahay xanuunka ka dulqaado inta xanuunka qabtoo dhan waynu u soo ducaynayna dhammaantoodba. laakiin haddaad xanuun qabtid waxaan leeyahay xanuunka ilaahay baa kuu keenay ilaahay toobadkeen
bilaadanka inta caafimaadka qabtana inaad la goysid oo aad u qarisid oo aad u dhoomatid oo aad tiraadid amba xanuunka waan qabaa maxaa iga galay dadka kale taas waa xaaraam weeyaan runtii waxaan doonayaa kale inaan la qaybsado creamkan oo aan anigu isticmaalay runtii aad iyo aadna waan ugu helo weyna i anfacay waxaa aniga anfacay waxaan jeclay inaan hablaha Soomaaliyeed oo dhan la qaybsado creamkan waxaa haysa amalkayse waa creamkii amalkayse weeyaan creamkani kani waa night cream habeenkii markaad seexatay ayaad marsanaysaa kanna waa day cream saa aragtaan wax weeyaan oo maalintii waad marsanaysaa marka creamkani runtii anigu intaan isticmaalayay isbedel aad iyo aad weyn baan ku arkay wuuna i anfacay waa natural wax dhibaato ah male jidhkaagana nuurkiisa ayuu soo celinayaa anigu si aad iyo aad weyn ayaan u soo dhaweynayaa waana amaalkiisa ka helaysaa waa garanaysaan amaalkiisa meesha lagala xiriiro runtii qofka walaalkaayana yacni horumarku gaaray iyo wanaaga uu bulshada usoo kordhinaya in mataqaanaa lagu hambaliyay ayaan aad iyo aad u jecelahay amaalna inaan ku hambaliyay aad aad u jecelahay creamkana hablaha Soomaaliyeed wajiga ka qayarmay inta u baahan mataqaanaa wajigooda dhibaato inay ku dhacdo soo celiso creamka isla ogaadan idin leeyahay amaalkiisa ayaa ka helaysaan inta ayaa maantayga eg tahay aad baan dhammaantiin bay idin wada salaamaya meel kasta iyo mar walba aad joogtaanba qayr iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan idinkaga tegaya inaan isku ognahay xaggan kalena ogaada naftiina ilaaliya naf wax ka qaalisan ma jirto yani ciyaar iyo naftiina idinku dhaafin baan leeyahay dee qayb baan isku naxariis baan arka waayo caafimaadkayga ayaan soo baadhay marka qof aan warqad sidanin qof aan dhakhtarka geynin aan iska hubsanin caafimaadkiisu inuu sax yahay runtii inaad naftaada ku haligtid oo naftaada ka dulgeysid qalad baan u arkaa runtii intaasna waxay iga tahay wacyigelin bay iga tahay maxabadna waynu soo ducaynayna in ilaahay caafimaadkiisiyo taama in ilaahay siiyo in ilaahay xanuunka ka dulqaado inta xanuunka qabtoo dhanna waynu u soo ducaynaynaa dhammaantoodba laakiin haddaad xanuun qabtid waxaan leeyahay xanuunka ilaahay baa kuu keenay ilaahay u toobadkeen bilaadanka inta caafimaadka qabtana inaad la goysid oo aad u qarisid oo aad u dhoomatid oo aad tiraadid amba xanuunka waan qabaa maxaa iga galay dadka kale taas waa xaaraam weeyaan runtii waxaan doonayaa kale inaan la qaybsado creamkan oo aan anigu isticmaalay runtii aad iyo aadna waan ugu helo weyna i anfacay waxaa aniga anfacay waxaan jeclay inaan hablaha Soomaaliyeed oo dhan la qaybsado creamkan waxaa haysa amalkayse waa creamkii amalkayse weeyaan creamkani kani waa night cream habeenkii markaad seexatay ayaad marsanaysaa kanna waa day cream saa aragtaan wax weeyaan oo maalintii waad marsanaysaa marka dadkii igu xeernaa iyo dadkii ila joogay iyo dadkii gabadha ii galbinayay iyo dadkii mataqaanaa igu qabanqaabinayay inaan inta guursado kulli wixii way wada ogaayeen dabcan dadka wada jooga dee meesha waaba iska yartaahayoo waa la is wada ogyahay runtii laakiin qof wuxuu iga qabtay iyo qof wuxuu yidhi maxay isiiyey buu yidhi wacyigelin iyo qof igu yidhi war ka joog toona midna ma ay jirin waa lay wada aamusay buu yidhi shubba lay wada yidhi iyada laftigeedii aan guursanayay wuxuu yidhi dabanka way ii dhigtay shubba ii tiri hase ahaatee bal anigu waxaan isweydiiyey qof bili-aadana oo islaama oo walaalkaaya oo shahaadinaya haddii adiga xanuun iyo dhibaata ay kugu dhacday halkaad adigu ilaahay uga toobadkeena ilaahay ka baryi lahay qof kale inaad halagtid oo aad xanuunkaad qabtay aad u qarisid oo aad mataqaanaa futurekiisa haligelisid oo aad naftiisa ku ciyaartid maxaad ka helaysaa intii waa wax aan aad iyo aad uga naxay haddaba anigu waxaan inanka UK buu joogaa UK buu kusoo noqday wuxuu dhakhtaradaan tegay dhiiggiimas ka qaaday xanuunkii wuxuu soo diray wuxuu igu yidhi waddanka UK buu in badan deganaa inankuna dhalinyaro ahaa da'diisu saamay weynin wuxuu wadankii baan tegay wadankii markaan tegay buu yidhi aan joogay buu yidhi muddo ilaa bilman ahaas ayaa wuxuu lagu qalqaaliyay lagu yidhi guurso wuxuu yidhi inan baan is aragnay inantana aad baan uga helay buu yidhi runtii calafkuna ku adeegtay waana guursaday inantii hase ahaatee sheekada waan soo gagaabanaysaa guud hase ahaatee wuxuu yidhi inantu marka aan guursanayay dadka intii igu xirnayd intii ila socotay inanta laftigeedii xalaali wax lay sheegay ma jirto aniguna si indhala ayaan inanta ku galay kuna guursaday wuxuu yidhi muddo markaan inantii wada joognay ayaa wuxuu yidhi sheekooyin yaryaroo xanxan iyo waxay soo gargaaray dulduul inantu inay xanuun qabtay xanuunsanaysay iyadii ayaan wuxuu afkeedu la tegay waxaan ku dhaho yidhi sheekadan isoo gaadhaysaa maxay tahay waxay igu tiri walaalo ama ka nax ama ku farax xanuunka caynka iyo caynkaas eediska la yirahdo ayaa i haya dee wata sheekada lagu sheegay wuxuu yidhi waa naxay aad iyo aad baan naxay qof bilaadan aan ahay
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاد بان إذن السلام يا وانا كلتونا ومدى الصوماليد ملك استقيم الوضوءات شوكتان بعد بان السلام يا waxaan isiri life soo gal laakiin life wuu shaqeyn waayay marcadka bay shaqeyn waayay mana life gabadhiisii ayaa mudaharaad igu galay oo shaqeyn waayay runtii aad baan idin salaamaya dhamaantiinba waxaan doonayaa inaan halkan idinla qaybsato qiso yar oo mataqaanaaye wacyigelina oo dhanka Facebook la iga soo diray waxaan kaloo doonayay inaan halkan idinla qaybsado cream aan doonayo inaan gadaal idinka tuso laakiin qisada ayaan ku horeyn doonaa qisadan waxa ii soo diray inaan maxamed la yiraahdo oo ku nool wadanka UK qisadan aad far badan baa la soo diray laakiin tan waxaan uga soo doortay ama aan uga soo dhaxbaxay waxay inoo noqon doontaa wacyigelin dhalinyaro aad iyo aad far badanna waxay noqon doontaa feejignaan in ay mataqaanay waxyaabahaas oo kale ay ka feejignaadaan ama ay mataqaanay iska ilaaliyaan hadalkeena ku daalin in UK degan oo maxamed la yiraahdo ayaa sheekadan positive ugu noqday wiil walaalo wana qabaa laakiin qarsan maayee dhalinyarta fara badan wuxuu yiri Soomaaliyeed ee tayada kale ku socota ayaan doonayaa inay ila qaybsadaan kana joogan kana foojignaadaan waxaan idin farayaa haddaba oo idinku daraya qofka bilaadanka marka aad guursanaysaan kulay guur uu dhacay oo ma joogsanaye qofka bilaadanka marka aad u tagaysid iska hubso caafimaadkiisa wuxuu yahay qofka dhakhtar iska gee iska eeg adigaaga laftigaaga dhakhtar tag يعني waraaqiheenni adinkoo sito oo qofkana aad ogtay inuu caafimaad qabo adna aad caafimaad qabtid dabatana sidaa isku guursada laakiinse qof aanad garanaynin dala qadolo daf inta tiraadid nafta wax ka qaalisan ma jiraan yani maalin haduu madaxu ku xanuuno waad ogtahay dhibaatadaad maraysid macna waaba naftaadii dhammayd weeyaan ayaa leeyga ku jirta marka iska hubsadan idin leeyahay Soomaaliduna waxay tiraahdaa badana marka la yiraahdo qofka ordo dhakhtar tag ama isa soo baad waxaan iska baaraya maxaad igu ogay yani wuxuu qaataan in yani attack iyaga lagu sameeyo oo kale attack maaha maanta hadduu qof igu yiraahdo ordo walaal dhakhtarka tagayso soo baxo